kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxa ugu waaweyn Somaliland oo dhulka xeebaha ee dhaca gobolka Awdal ku qabatay hub iyo saanad ciidan oo loo waday gobolkaasi. Sirdoonka Somaliland oo durba bilaabay dhaqdhaqaaq ciidan xogihii ugu dambeeyay warar xasaasi ah iyo hubka ay qabteen Somaliland goobaha lagu kala qabtay cadeemaha la helay macluumaadka ka imaanaya goobaha qaar iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa kadib dhaqdhaqaaqii saacadii la soo dhaafay ciidamadu ay ka sameeyeen goobaha qaarkii. waxaa sidoo kale daawan doontaan wararka guud ee la xiriira sirdoonka Somaliland talaabooyinka military iyo sidoo kale qorshaha dagaal ee durba markaasi ka bilowday goobahaasi. balse intaan faahfaahinta guda gelin waxaan ka dalbanayaa muuqaalka inaad noo share gareyso like saartid meel fog gaarsi qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela wararka warbixinada iyo macluumaadka xasaasiga ah ee halkan aynu ku soo baahino. waa hagaag aan ku horeeno waxaa saacadihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan laga dareemayay goobaha qaarkii oo ay ciidamadu ka wadeen talaabooyin military oo degdeg ah kadib markii dhowrkii saac ee ugu dambeeyay ee ciidamadu ay qaadeen dhaqdhaqaaqyadani. waxaa soo tarayay talaabooyinka sida gaarka ah loo qaaday ee la xiriira howlgallo la sheegay in laga bilaabayo goobaha qaarkood. goobaha ay markaasi ka bilowdeen qorshayaashan degdega ayaa waxay ahaayeen kuwo saacadihii ugu dambeeyay ay ka socdeen talaabooyinka ciidamadu ay qaadayeen iyada oo weliba ay soo tarayaan qorshaha degdega ah ee looga jawaabayo xaaladan jirta. Somaliland ayaana qaaday sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd hubkan iyo saadkan ciidan ee saacadihii lasoo dhaafay la dhaafsiiyey goobaha qaarkood iyada oo weliba ay socdaan talaabooyinkii ugu dambeeyay iyo qorshayaashii ugu xooganaa ee si degdeg ah loo qaado weliba iyada oo laga falcelinayo xaaladan jirtana ay aad markaasi u sii abuurtay. ciidanku waxa ay gacanta ku dhigeen hubkii iyo saadkii ciidan ee ugu badnaa ee gacanta lagu dhigo iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ka wada goobaha qaarkood oo ay si gaar ah dhulka xeebaha ah oo ilaaladeeda la kordhiyay ay ka wadeen ciidanka saacadihii ugu dambeeyay qorshayaal xoogan. waxaana ay gacanta ku soo dhigeen hubkii ugu badnaa oo ay soo geliyeen dowladda Jabuuti. dhaqdhaqaaqyo culusna ay wadeen saacadihii ugu dambeeyay taa oo sii xoojisay caqabadaha durba ay wajahayaan dhinaca iyo dowladda Jabuuti oo talaabooyinkan qaaday kadib dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ay wadeen ciidamada. waxaana hadda ay u muuqataa in mar kale awood ciidan la isku maquunin doono. Jabuuti dhankeedu waxay doonaysaa inay ka hortagto qorshaha degdega ah ee markaasi Somaliland hadda ay qaadayso iyada oo weliba wararka soo baxaya ay tibaaxayaan in Somaliland ay qaaday tallaabadii ugu weyneed ee ciidan ee markaasi looga hortegayo qorshayaashan ku socda iyo xaaladan halista ah khatartana muujinaysa ee soo korortay. waxa ay Somaliland sare u qaadeen xogta la helayo ee sirdoon iyaga oo ciidankii ugu badnaa geeyay meelo kala duwan oo ay haddaba ka wadaan xogo sirdoon oo degdeg ah oo durbaba laga helayo goobahaasi qaarkood. iyada oo ay saacadihii lasoo dhaafay socdeen howlgallo kala duwan ayaa haddana waxaa mar kale la xoojiyey dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda gobolka Awdal oo dhulka xeebaha Somaliland dhaca ka mid ah. sidoo kalena ay ciidanku ka sameeyeen howlgal xoogan gacantana ay ku soo dhigeen xubno la sheegay in ay markaasi wadeen hub iyo agab kale oo ciidan oo la doonayay in laga gudbiyo xeebaha Somaliland. Jabuuti dhankeedu waxay qaadaysaa qorshihii ugu halista badnaa ee markan loo qaadayo dhanka iyo Somaliland waxaana ay isku dayayaan waddo kasta oo ay u maraan iyo xaalad kasta oo ay markaasi wajahaan iyada oo weliba maraakiib dagaal iyo doomo dheereeya loo soo diray sida la sheegay Saylac iyo goobo kale oo ay ka mid yihiin dekedii Berbera oo dhaqdhaqaaqyadu ay ka bilaabanayaan. goobahan ay markaasi doonayaan inay gaaraan ciidamadan hubeysan. waxaa wararku ay sheegayaan hadda in dhinaca kale ay markaasi ku sugnaayeen ciidamo ajaaniba oo imaaraadku uu tababaray qaarkoodna imaaraadka markaasi ka soo jeeda oo shirkadda DP World oo gacanta ku haysa mashaariicda inta badan dekedahaasi qaarkood ay markaasi ciidankaasi si gooni ah iyagu u taageeraan dhaqaalahana ay ku bixiyaan. Djibouti
waxaa hadda ay wajahaysaa caqabadii ugu weyneyd, waxaana Somaliland dhankeeda iyaduna ay qaadaysaa tallaabo culus oo ka dhana dhaqdhaqaaqyadan socda iyo sida ay wax u socdaan, iyada oo intaasi oo dhan ay taagan yihiin marxalado kala duwan lagu jiro. Xaalka deegaanadaasi qaarkoodna ay gaartay meeshii ugu adkeyd ayaa haddana wararka soo baxaya ee soo taraya waxa ay muujinayaan in khatartu ay sii badatay kadib markii hub la sheegay in la soo geliyay deegaanada qaarkood oo Somaliland hadda ay wado dhaqdhaqaaqyo ay kaga hortagayso tallaabooyinkaasi. Waxaa dhinaca kale wararka soo baxaya hadda ay muujinayaan in ay bixinayso tani digniintii iyo tallaabadii ugu weyneed ee durbaba looga jawaabayo qorshahaasi. Somaliland waxa ay qaadayaan go'aan kama dambays ah iyo tallaabooyin degdeg ah oo ka jawaabaya fariimaha taagan xaalka hadda sida uu yahay, iyaga oo deegaanadooda qaar ka mid ah ama goobaha sida gaarka hadda loo calaamadeeyay ee qorshuhu uu ku socdo ama ka socdaba in ay markaasi geynayaan ciidankii ugu badnaa. Waxaa la geeyay goobaha qaar ciidamadii ugu badnaa ee ka socday Somaliland, waxaana ay mar kale dhaqdhaqaaqyadu ay noqdeen kuwo si degdeg ah ay markaasi uga jawaabayeen fariimo culusna xilligan ay yihiin kuwa ku socda, iyada oo wararku ay intaasi ku sii darayaan Somaliland inay xilli kasta qaadi karto tallaabo degdeg ah, khatar iyo culays kalena abuuri karta. Ayaa haddana Jabuuti qudheedu waxa ay wadaa qorshihii ugu dambeeyay iyo tallaabadii ugu weyneed ee loogaga jawaabayo xaaladan soo korortay saacadihii ugu dambeeyayna taagneyd ee la xiriirta in si degdeg ah loogaga jawaabayo khataraha amni iyo deegaanadaasi culayska durba saaran. Ciidankii ugu badnaa ee ka socda Jabuuti oo qaarkood jabhad ahaan loo diyaariyey, weliba wata calanka Soomaaliya sida la sheegay, ayaa gaaray duleedka deegaana dhaca dhulka xeebaha ah ee Somaliland, gaar ahaan gobolka Awdal, halkaasi oo dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdeen dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay. Waana midda keentay in si degdeg ah xilligani ay tallaabooyinkaasi u qaadaan ciidamadu. Qorshayaasha halista ah ee socda iyo ka jawaabista arrimahan hadda taagan ayaana ka dhigtay mid xiisadani sare u sii qaaday. Somaliland ayaana ciidankii ugu badnaa waxa ay geeyeen goobaha dagaalka, si gaarana waxay aad u adkeeyeen amniga dhulka xeebaha ah, iyaga oo gacanta ku dhigtay ama ku qabtayba hub aad u fara badan oo la sheegay in deegaanadaasi lasoo gelinayay, qorshuhuna uu ahaa in deegaanadaasi si buuxda hubkaasi loogu gacangeliyo. Dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada ka socday deegaanadan qaarkood ayaa muujinayay xaalado khatar ah iyo haliso kale oo Somaliland qudheeduba ay wajihi karto, iyada oo weliba ay intaasi oo dhan taagan yihiin xasaradu ay tahay midii ugu adkeyd, uuna sidoo kale soo ifbaxay culaysaadka ammaanka la xiriira. Ayaa haddana waxaa wararku ay sheegayaan in Somaliland qudheedu ay qaadayso tallaabadii ugu dambeysay ee kama dambeysa ee loogaga jawaabayo culaysaadkan amni ee hadda taagan, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ciidamadu ay wadaan. Qorshihii ugu dambeeyay ayaana durba ka bilowday goobaha qaarkood, waxaana warqabadkeena xogaa hadda ku soo dhaca ay muujinayaan in Somaliland ay qaadayso tallaabadii ugu dambeysay ee hubka looga dhigayo jabhadani, sidoo kalena ay aad markaasi u adkeynayaan amniga deegaanada ee lagu tirinayo in jabhadan ay ku xoogan tahay, dhaqdhaqaaqyaduna ay ka wadaan. Waxaana Jabuuti qudheedu hadda ay wajahaysaa caqabadii ugu weyneed ee durba saaran ama soo ifbaxday kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay wararku tibaaxayeen inay socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan oo dhanka Jabuuti ka socda, oo weliba hubkii ugu badnaa ay keeneen dhulka xeebta ah ee dhaca deegaanada gobolka Awdal ee Somaliland. Somaliland ayaana qudheedu sirdoonka sare u qaaday, waxaana heegan la geliyay sirdoonka, militariga, booliiska iyo ciidamada kale ee markaasi deegaanka ee madaniga loo yaqaano, kuwa oo la soconaya dhaqdhaqaaqyada ka socda dhulka xeebaha ah ee deegaanada Somaliland, si gaarana ay uga socdaan hadda dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay.
ogeysiis muhiim ah cisbitaalka Samakeer waxa uu bilaabay 6 bishii Julaay oo daaweyn iyo qaliimo ay fulinayaan khubaro u dhalatay dalka Suudaan kuwaasi oo kala ah Dr. Osama Gasmal Said oo qabiir ku ah cudurrada haweenka iyo taranka IVF iyo Dr. Maxamed Cabdilxamiid oo ku takhasusay qaliimada guud iyo bogsakarowga la kulanka dhaqaatiirtu waa lacag la'aan qiimaha qaliimada waxa la dhimay 50% waxa ayna socon doonaan muddo 45 cisho ah ee horay u gaar Samakeer oo ku yaala kaasa balbalaare ka soo horjeedka saldhigga Hodan waxaana warar hadda soo baxaya ay sheegayaan in gacanta lagu dhigay ilaa iyo tiro maxaabiisa oo markaasi ahaa kuwii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada ciidanka waday goobaha dagaalka qaarkood talaabooyinka ay qaadeen ciidamada Soomaaliland ayaana muujinaya hadda inay yihiin kuwa ay durba ugu sii gudagalayaan xaaladda ka taagan deegaanadaasi iyadoo oo ay goobaha dagaalka sida aaga Guumeys iyo goobo kale oo Qorlugud ay ka mid yihiin ciidamada Soomaaliland ay ku qaadeen weerar iyadoo oo weerarka sidoo kale uu ahaa mid dhabagala sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah saraakiishu waxaana lagu bartilmaameedsaday gaadiid dagaal oo loo waday goobaha iyo jid hore ee dagaalka weerarkan wadagalka ah oo ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland ee muddooyinka ugu dambeeyay lagu sii qulqulinayay goobaha dagaalka ayaa waxa ay ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo hub culus oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay ahaayeen kuwa ay ku bartilmaameedsanayeen goobaha dagaalka qaarkood goobahan sidoo kale bartilmaameedyadu ay ka dhaceen waxa ka mid ahaa aaga Guumeys halkaasi oo gaadiid dagaal loogu furtay SSC qaatumo gaadiidkan oo ilaa iyo gaaraya 8 cabdibire sidoo kale waxa ku jira oo la sheegay in laba nooc gaadiidka xamuulka ama gaadiidka waaweyn ee saadka ciidanka qaada inay qayb ka ahaayeen waxaana hubka sidoo kale ay gacanta ku dhigaan kamid ahaa qoryaha fudud kuwa culus iyo hub ahaa saad ahaan kuwa loogu waday ciidamada iyada oo rasaas tirabeela oo saarnaa gaadiidka nooca qunfulan ee markaasi ah baabuurta waaweyn ee saadka ciidanka lagu qaado gacanta Soomaaliland ay galeen dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland ay wadeen ee goobaha dagaalka ka socday waxay ahaayeen kuwa is soo tarayay waxaana lagu bartilmaameedsanayay goobahaasi ciidamo la sheegay in SSC qaatumo dhankoodu ay u sii wadeen dhanka furmaha dagaalka ciidankan waxa wararku ay sheegayaan in uu diray mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Soomaaliland ee markaasi wadagalka markaas sameeyay iyada oo ay ahaayeen kuwa ka amar qaadanaya Mahad Cambaashe oo ciidamada Soomaaliland amar ka siiyay in si degdeg ah uga hortagaan ciidamo la sheegay in laga soo diray dhanka Laascaano oo uu markaasi soo diray Cabdi Madoobe oo ah mid ka mid ah taliyayaasha meelka adag ee dhanka qaatumo ama waqooyi bari halka oo ciidamada uu ka soo diray waxaana ay ku sii jeedeen goobaha dagaalka saad ciidan ayay galbinayeen ciidan kale oo tiro badanna waa ay la socdeen maxaabiis ilaa iyo dhowr iyo 10 qof ah ayaana la sheegay in gacanta lagu dhigay oo Soomaaliland ay u gacan galeen kadib markii dhaqdhaqaaqyo ay sameeyeen ciidamada Soomaaliland talaabooyinka qaarkood ayaana muujinaya hadda inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee dhawaanahan la sameeyo qorshe dagaal oo culus ayayna dhinaca Soomaaliland markan durba bilaabeen iyadoo oo talaabooyinka hadda socda ay muujinayaan inay yihiin kuwii ugu waaweynaa ee dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada military ee Soomaaliland dhankeedu ay sameeyeen ay qayb ka ahaayeen ilaa iyo dhowr meel oo kala duwan ayay wararku sheegayaan in dhaqdhaqaaqyada ciidan laga dareemay oo ciidamadu ka sameeyeen waxaana ay ku dhiiradeen inay gudaha u galaan goobo maxaabiis markaasi ay ku hayeen ciidankii SSC qaatumo oo ugu dambeyn ay gacanta ku soo dhigeen ilaa iyo dhowr maxaabiis ay Soomaaliland xabsiyada qaar iyo goobihii lagu hayay maalmo ka hor laga qabsaday ay ka sii daayeen waxaana sidoo kale iyaguna ay gacanta ku dhigeen kuwa kale oo hor leh oo la soo wariyay inay u gacan galeen labadii maalin ugu dambeeyay waxa socday dhaqdhaqaaqyo culus oo xoogan oo qasaaro tirabeel dhaliyay waana mid ka keena ugu dambeyn hadda in hub iyo gaadiid dagaal ay ka furtaan dhinaca SSC qaatumo iyagoo gacanta ku dhigay gaadiidkan oo ahaa kuwa la sheegay in laga qaaday Muqdisho ayna ku sii jeedeen goobaha dagaalka dhawaanahana ay markaasi dawladda Soomaaliya ku sii qulqulinaysay goobaha dagaalka ayaa haddana waxa isu soo taraya talaabooyinka hubeysan ee Soomaaliland ay kaga hortagayaan qorshaha firdhiye iyo in ciidamo kale oo gurmada ay gaaraan goobaha dagaalka iyadoo waliba tiro dhowr jeer ay soo laalaateen warar sheegay in dhaqdhaqaaqyo hubeysan ay dhinaca Soomaaliland ay ku doonayeen inay kaga hortagaan dhanka SSC qaatumo oo muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamadii ugu badnaa oo ka yimid dhanka Muqdisho ay ku daabulayeen furmaha hore iyo goobaha dagaalka
oo dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdeen, waxaana si gaar ah hadda u socda tallaabooyin hubeysan oo dhinaca SSC Khaatumo ay mar kale iyagana jawaab uga bixinayaan falka maanta dhacay ee ciidamada Somaliland ay wadada markaas ugu galeen ciidankii waqooyi bari ee Firdhiye, kuwa oo doonayay in ay gudaha u galaan goobahaasi ee dagaalka. waxaana hadda u muuqataa xaaladdu mid markaasi ay socdaan dhaqdhaqaaqyo culus oo goobaha dagaalka markaasi la xiriira. wararka qaarkood waxay hadda sheegayaan ama muujinayaan inay dhaqdhaqaaqyadu gaareen meelihii ugu cuslaa, waxaana durba hadda markaasi ka dhaqaaqay aaga Laascaanood ciidamo badan oo booliis isugu jira iyo military oo la geeyay markii horeba Laascaanood halkaasna ku sugnaa. waqooyi bari ayaa tallaabooyin military durba qaadaysa iyada oo dhaqdhaqaaqyo hubeysan oo ciidan ee laga dareemay qaarkood meelaha ay markaasi aad isugu hayaan xubnahani iyo dhaqdhaqaaqyo military oo degdega oo soo ifbaxay. waana dhowrkii maalin ee ugu dambeeyay tallaabooyinka dhinaca SSC Khaatumo ay qaadayeen oo hadda u muuqda inay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee looga jawaabaya xaaladaha qaar ee taagan. dhaqdhaqaaq hubeysan ayayna durba ku dhawaaqeen hadda in markaasi ay u qaadaan dhinaca SSC Khaatumo ee dhanka Somaliland, halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo hubeysan sidoo kale ay isu soo tarayeen. meelaha qaar dhaqdhaqaaqyadu marka laga soo tago inay hadda ka socdaan, waxaa wararku ay sheegayaan in ay Somaliland dhankeedu ay durba bilaabeen in ay soo daayaan maxaabiista qaar oo ay kala saareen rag la sheegay in ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada hubeysan, ayaana lasoo wariyey in laga sii daayay meelaha markaasi lagu xiray. waxaana ay markaas Somaliland dhankeedu hadda u qaadaysaa tallaabooyin kale oo degdega arrimaha taagan iyo dhaqdhaqaaqyada hubeysan ee xilligan yihiin kuwa ugu dambeeya ee ka socda meelaha qaarkood oo qorshayaal culus ay durba ka leeyihiin haddaba kuwa markaasi kasii socda. waxaa dhowrkii saac ee ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqyadu ahaayeen kuwo isu soo tarayay tallaabooyin militarina markaasi ay qaadayeen dhanka SSC Khaatumo, walow wararka qaar ay hadda muujinayaan in Firdhiye uu durba isugu yeeray saraakiishiisa, kuwa oo markaasi uu faray amar culusna uu siiyey isaga oo weliba fasax markaa u siiyey inay u qaadaan dhaqdhaqaaqyada hubeysan tallaabooyin markaasi dhanka ciidanka ah. iyada oo weliba ay socdaan tallaabooyinkani, waxaa sidoo kale hadda soo baxaya warar sheegaya in dhaqdhaqaaqa hubeysan laga dareemayo meelaha qaarkood oo ciidamada Somaliland hadda ay qaadeen oo sidoo kale ay dhaqdhaqaaqa hubeysan ay u qaadeen. sidoo kale war laga helay dhinaca SSC Khaatumo hadda ka soo baxay waxay sheegayaan in durba la faray ciidamadii Somaliland ee markaasi maxaabiista qabsaday ee dhaqaaqa ciidanna sameeyay in laga hortago oo ay si gaar ah markaasi ugu dhaqaaqaan goobaha hore ee dagaalka, iyada oo weliba sameynaya ujeedooyin iyo rogaal celin dagaal oo degdeg ah. ciidamada qaar waxaa la arkayay iyaga oo shacabkii iyo sidoo kale dadkii deegaanka ay dhinac socdaan, dhiirigelinana ay u sameynayaan. waana mid soo dedejiyay xilligani in tallaabadani si degdeg ah ay markaasi u qaadaan. waxaa sidoo kale ay hadda u muuqataa in dhinaca SSC Khaatumo ay jawaab culus ka bixin doonaan tallaabadan dagaal iyo dhaqaaqan ciidan oo hadda ka socda goobaha qaar ee maxaabiista iyo ciidanka loogaga qabsaday, walow ay markaa hadda ay si gaar ah u socdaan dhaqdhaqaaqyo iyo kuwo kale oo tallaabooyin ciidan ah oo ay hadda markaasi u socdaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay ee ay ku doonayaan in ay goobahaasi qaarkood ay ku gaaraan.